Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal iyo daawadayaal. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha codka caasimadda. Waxaa si toos ah uga daawataan oo kala socotaan YouTube channelka Qis BR Official. Waxaa barnaamijka idiin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Khalid Cabdiraxmaan Xasan Qis BR. Warqad ka soo baxday Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay u qoran sidatan: waxaan maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixanay 5 milyan oo doolar oo lagu horumarinayo oo loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed. Madaxa hay'adda DFID ee Soomaaliya Philip Evans waxaana 5 milyan si hordhac ah u bixinaya hay'adda USAID. Heshiiskani waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha hay'adda USAID ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba wasaaradda waxbarashada. Waxaa ka go'an sidii loo xoojin lahaa xiriirka nagala dhexeeya dowladaha caalamka. Waa sida hadalku dhigay Wasiir Cabdulaahi Goodax Bare. Dhanka kale, Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa dhammaan waxay ogeysiinaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Soomaaliya iyo caasimadda Muqdisho in ay bilaabatay isqorista ama aqbalaadda ardayda cusub ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. War qoraal oo ka soo baxay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu qornaa sidatan: ogeysiis muhiim ah. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxa ay ogeysiinaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed ku wargelinaysaa in ay bilaabatay isdiiwaangelinta ardayda ee sanadkan ku biiraysa Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Jaamacadda sanadkani waxa ay aqbalaysaa ardayda rabta 10 kulliyadood ee kala ah: Kulliyadda Waxbarashada qeybaheeda kala duwan oo kala ah Biochemistry, Chemistry, Biology, Math, Physics, English History, Primary. Kulliyadda labaad Engineering oo kala ah Civil Engineering iyo Electrical Engineering iyo Mechanical Engineering. Kulliyadda saddexaad oo Agriculture oo ah Agriculture, Environmental Science. Economic oo kala ah Economics iyo Management. Kulliyadda shanaad oo ah Veterinary oo kala ah Animal Husbandry iyo Veterinary Medicine. Kulliyadda lixaad Law. Kulliyadda toddobaad Medicine and Surgery oo ah Medicine and Surgery. Kulliyadda sideedaad oo ah Islamic Study oo kala ah Islamic Studies, Arabic Language. Kulliyadda sagaalaad oo ah Social Science oo kala ah Journalism and Communication, Social Work, Politics. Kulliyadda tobanaad oo ah Science oo kala ah Geology iyo Marines. Maadooyinka lagu gelayo imtixaanka soo gelidda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed sanad tacliimeedka 2020-2021 ayaa ah 5 maado oo kala ah maadada Physics-ka, Math, Biology, Chemistry iyo Ingiriis. Dhanka kale, maadooyinka u gaarka ah Kulliyadda Daraasaadka Islaamiga ee sanad tacliimeedka 2020-2021 ayaa iyana ah 5 maado oo kala ah القرآن والتجويد وحفظه 5 أجزاء. 2 التربية الإسلامية oo kala ah توحيد، حديث iyo فقه. 3 اللغة العربية oo kala ah قواعد، نحو iyo تعبير. 4 الرياضيات، العلامات الأربعة oo kala ah ku dar, ka jar, ku dhufasho iyo qeyb. iyo nambarka 5 oo ah اللغة الإنجليزية. dhanka kale shuruudaha la isaga doonayo ama la isaga rabo diiwaangelinta sanad tacliimeedka 2020-2021 ayaa ah 5 shardi oo kala ah shahaado dugsi sare ah oo leh asal iyo koobi iyo sawiro oo ah Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Soomaaliya. 2 waalid ama mas'uul uu wato ardayga isqoraya. 3 feel ama gal. 4 sawir oo teesar ah. 5 dhalasho iyo sugnaansho gobolka ah. Fadlan ka faa'iideyso oo yeesan ku dhaafin Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Teeda kale, ardayda doonaysa in ay ka qayb galaan gelidda imtixaanka aqbalidda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
sanad tacliimeedka 2020-2021 sii gaarsii kan dhageysanayo ama daawanayo muuqaalkani oo soo booqo YouTube channelka KSBR official subscribe-na saaro asxaabtaadana la sii wadaaga oo sii share garay kuna share garay dhammaan baraha bulshada sida Facebook-ga iyo wixii la halmaala ogsoonow share gareynta ashagaraysay haddii uu qof ka war helo warkani ama dhageysta uu soo gala jaamacadda inaad ku leedahay ajir. dhanka kale war hadda naga soo gaaraya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa waxaa u qornaa hadalka sida tan: waxaa hoolka sahal saacadaha soo socda ka bilaaban doona munaasabadda ku wareejinta waxbarashada gobolka Banaadir. wixii war ah oo kasoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaa idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah.